asxaabta soo dhawaada waa soo laabta mar kale hal video ciyaarta caawa laguma qiimeyn karo marka tan waxaan rabaa inaan ku qiimeeyo yani guusha Arsenal waxa sababtu ahay iyo guuldarada Manchester United sida ogtiin waxa waaye naadigan waqtiga waa naga soo badiyeen Arsenal waa la garaacay waxa lagu garaacay Manchester markaa nafil caari ahayd kooxdan hogaanka wada qantay ka ahayd dad miyaysan guuldarooyin xuna ku soo dhacay macalinka uu cusbay Antonio cusbaa la keenay asxaraana ku jireen naadigi hadda laakiin form fiican ku jiraan yaanta way soo badinayeen inkastoo nin dhaxa oo muhiim ka maqnay aan laakiin wax muhiim ah gal male ciyaartii hore Arsenal Thomas Partey ayaa ka maqnay Bruno waxa laga dhaliyay ku dhaxdiiba hadda gool oo hadda aragteen Antonio inta loo tuuro ka daba hortiis ku qaaday koorna uga bixisay Partey taasoo kale Arsenal waa laga dhalay macalinka Manchester United wuxuu keenay noobaha dheer iyo Antonio waaba keentay waaba sax waa ku soo bilaawtay waxa la inuu sameeyo halfkan markii la gaaro oo 60 daqiiqo markii la gaaro half la maro inay dhahan naga bax isha saaxiibka ninka dheer inay cunaan ay dhahan iska bax Antonio iska bax Garnacho keensadaan Rashford nooba laga dhigo laakiin maxaa dhacay Rashford ciyaartii dheer waa ogeedana oo City Rashford aqoontiisa oo maanta qatarta ku badan cunugana imaaday City cunuga culeys saartay Bruno la keenay dhaliyay cunuga markuu imaado Arsenal culeys fuul lahayd cunugii ma la keenin ninkii dheeraad baaqul boy ahayna saaxiibka waa la daayay Antonio iska ninkaay goosh aadeen marna koornadu aadaa sidii madax wareer qof qabto marna wuu la laabtaa gadaal la laabtaa midkaas wax ma dhaamin wallahi isha Cabdi Fataax oo faayay maqalka joogo hal xabad uu ogaba kana ka xoog badan xataa uu iska wareeray Manchester taageer uu iska wareeray hadan midda kale macalinka ninka Hiliblaha iyo Faran Adarfiri Hiliblaha gool uu faraxsanaayo goolka hadda ka dhalay miir ma barahan gadaal ku jiro annagu ugu sii muu raacday ninkii raacday Faran ma dhihin sida aragteen Van Dijk iyo difaacida waaweyn qoftu waa hagan Faran way argay jambiyoon soo qaaday Real soo dheelay Faran soo dheelay koob adduun qaaday waxa la dhaho waraa Albisteen soo bax oo hore u sii wato muu soo wadan Faran kaligiisa iska dhaxay Albisteen garay wuxuu ka daba orday Nketiah waan bisaakan oo isku ogtiin waan bisaaka waxa waaye ila kac iyo shabta waay laakiin macalinka Badr wuxuu keenay niman asxaabka laasi niman la jooga Abdulbiyeli iyo Aaron iyo Nuunay Amro kaasada niman Finland gaariyaasha ka wada maartay waa taqaaniin meesha soo dhaa asxaabtii hore meeshaas taxiga iska wataa nimankaas Amro ii keenay mid hore iska tagay hadda muxuu qabtay noobaha 9 ku dhameystay muxuu qabtay hadda markii dambe uu Garnacho keenay fiiri muxuu qabtay ii sheegay Faraad markuu keenay Erikson Faraad McTominay isla dheelsi Faraad kan wuxuu cunay kan warkan waxa ku bedeshay cunuga Faraadna Erikson ku bedel burna waxa dhalaa 10 dheel muusa sameyn Abdullah Biyeli iyo Ishaq Aro bal Manchester waxa qabtaan naadigan Manchester waxa way baalka Arsenal naadi Arsenal oo dhaweenka guul naadi soo cutay Bukayo Saka wax laga qaban kara male laakiin aan wax la yaab warniyo cali maart horta waxa ii soo sheegteen asxaabay si jaamga meel uu ka dheeray soo sheegay lambar 10 miya saymiya otomiya taremiya kuwatarmiya noormiya undishamiya meel uu ka dheelo si jaamga adinka yaqaan adinki soo sheegay ninka si jaamga la in farta ka xaray Man City labada nin ay siisay labada nin aad muhiim ayaga uu ah si jaamga kulli waa ka badan yahay hadda Faraad kan Erikson iyo caashayo si jaamga ka badan soo meelay uu ku dhax qaadana intuu aada inta uu diido uu dhax mara si jaamgo waa wax kale annada level adii karna annada level iyo koobka ina qaadno horyaalada dambeeyay soo qaatay kan wuxuu dhahan qaadno koobka soo loo qaado waa nin fuudeena Bruno wax dhibada ma Allah midka ka reeyay gadaal ku jiro baqal maxaa baqay Bruno wax dhibada ma Japanka baqin illa kala qirab badan yahay wax yar ninka Japanka baan weeda goolay uu isku dhaxay goolka markuu naga dhashay jaalo qaatay Bruno wuxuu bilaaw asoo iska taagan iska baaso baan way daga soo baxay ninka Japanka la kansaday Arsenal halka meel ka qaldaneed way Martinelli adoodin waxa la Martinelli 80 xolada dhish iga soo bax Teresa ala keen hatta Martinelli anaka ninkan gool ku qadarnaa moodi Martinelli intii la faacata Martinelli calaadi soo gelinayay ariid badan uu ku hayay inkastoo Wan Bissaka uu yaar soo galo shaaftooyin badan loo kacay Wan Bissaka baalkiisa show u dist show hatta macalinka حتى شركة مسكوا كان سووا شو جالو قاطي قول واحد يقول لي بنانكا حتى شركة بدل شو حتى شركة بدل موسكو بدل مركز تاجرات مانشستر انت نصو عم بليسي او فوز مانشستر يا عبد الكريم علسو اصحاب تبرم عن الله وما سنتين لكن كل نصو عم بلان او
ciilkaayo ciilka kuwaas ciilkaayo waxaa leeyahay adinka dhiital gaagaalnin laan waa iga dhuuntayba Manchester uu taageeraya Brian waa la faanayay hadda waa iga dhuuntay ma qansad hooli mu u laabtay Ingiriiska ka imaado u laabta u maleena Turkiga dhan waa ka raadiyay hadda xaafadaha soo marmaray markaan nimanka fiidiyowga waxa waay biyo raacis waay kii hore biyo raacis waay kii hore biyo raacis waay Manchester United oo Ayub Carlo shin culiyo hore soo dhigteen aan wax ka qaaday adinka waa ogaadeen aniga waxba iga qaadeen marka waxaan leeyahay reer Arsenal maskaxda dajiya si janka haysatiin saliida haysatiin waxa haysatiin Odegaard the best midfielder oo lambarteen ka dheelo oo waqti xaadir kan haysatiin waaga yareen soo xasuusta caliyo waaga yareen Odegaard marka aragtid farxad ku qabataa war Odegaard nin banaankiisa ku dhacay Faisal saaxiibka Faisal tubacas iyo birlaqa iyo waxa la sheegay Uganda inay ku lumeen Allahayo Maxamed Daahir Degere tartiiba ku leeyahay Maxamed abti halumin tartiib xaaladiina dajiya taageerayaasha Manchester meel baa joogtiin hambali soo dhaw kuwan anaa niga calaaqo koobkan sanadka anaka qaadano soo dhawaadaan leeyahay